bulshada. run ahaantii mashruucan waxaan u galay hawl tiro badan waxaa fikradahan ka qaatay sanadkii dhow markii doorasho socotay waxa arka hawlasha oo la waayay xataa isbiyadii ay moogtay meel lagu shiro la waayay inay cirkaas ku shareertay in dhalinyaradu ay ka cabanayeen inay ka qayb qaataan arrimahaas markaan hore ku noqday waxaan la hadlay markii dad ganacsataa iyo dad shiciba booskan wiil dhalinyaro ah oo Minnesota degan baa igu soo wareejay wuxuu yiri adeer sayidku wuxuu bixiyay waxaan aad u qoslo sayidku wuxuu bixiyay firiina ma dhul baan bixin waayay moogtay marka wax lagu farxay noqotay hadda waxa ku jira dad ganacsataa sidoo kale waxa iyadoo aad u taageeri doonto kharash ka qayb qaadan doonto urur la yiraahdo Stichting Carlo Netherlands Stichting Carlo Netherlands waa Carlo Netherlands Foundation SKN oo aanu ka mid ahay guddiga waxaan ku talagalay ka qayb qaadano dad ganacsato ah iyo jaaliyada Minnesota iyo San Diego hayso bay u rabaan qaadeen marka inay saddex qaybood ku timaado rajeenayna waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa injineerku isaguna run ahaantii qayb weyn iyo injineer maxamed diiran lala oo jooga isboortka samada oo qayb weyn iyo dadaal iyo motivation badan kaga qayb qaatay in arrintaas socotana in badan dabada naga riixay marka hadda waa bilow lacagteeda kala bar already waanu haynaa dhulkii waa haynaa si dhaqso ah baan rabnaa inaan u bilowno dadada weyn waxa weeye education sport entertainment oo maarta ciyaaraha iyo business saddexdaa qaybood waa inay afartaa qaybood soo geli karaan waa educationka barashada sportiga xirfadda dhalinyarada iyo ganacsi inay intaas xaruntaas wada buuxin karto tan daru galan dhismaha inta badan inta kalena waxa ka qayb qaadanaysa dadka joog iyo ganacsato iyo qof walba awoodda uu leeyahay inaan dhamaystirano mana istaagay hadii la hayno marka waxaan si aad ugu mahadcelinayaa gobernadorka gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise oo aan ku aqaano inuu wax kasta oo horumarka ah nagala qayb qaatay taariikh horena aan isla soo marnay oo waxa ragii maartay asaasay ama nala bilaabay iskoolka New Waaberi walina u taagan horumarinta marka waxaan leeyahay ku soo dhaw Cabdullaahi Ciise runtii waan soo dhaweynayaa waan salaamayaa dhammaan dhalinyarada isugu timi saaka xafladan dhagax dhiga santarkan ay wadaan groupkan Cabdisalaam iyo injineerka iyo groupadooda aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa runtii mashruuc wanaagsan weeye haddii uu hirgalo waana hirgelaya ilaahay idinkiisa rajeynayno waana meel looga baahnaa oo magaalada geeskeedii ah magaalada ay u fidayso oo baahi badan looga qabo runtii in mashaariicaha noocan oo kale laga fuliyo iyadoo ay walba ay iskaga yaraayeen santarada iyo meelaha dhalinyarada yani maartay ay kor loogu qaado ama maartay lagu baro ama ay ku sameeyaan yani maartay ku soo bandhigi karaan aqoontooda iyo xirfadahooda aad bay u yartahay oo runtii waa fursad qaali ah oo aan u baahnayn inagu soo kordho santarkani waxaan rajeynayaa ilaahay idinkiisa ilaahay noo fududeeyo oo sida ugu dhaqsaha badan ay u qabsoonto oo u hawlgasho annagana waa diyaar baan lanahay insha allah wixii gacansiin ah ka dowlad ahaan iyo maamul gobol ahaan waa yani maartay aad baan diyaar ugu nahay waana soo dhaweynaynaa aad baan uga mahadcelinaynaa dhalinyarada maartay horumarka jecel oo hawshan keentay dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina wanaagsan iyo sidaa ugu heelantihiin in wax horumarin la soo kordhiyo aad baa mahadsantihiin salaamu calaykum dhagax dhigayaa santarkii dhalinyarada youthka iyo libraries ku jira oo ay Carlo Netherlands ay dhagax dhigayaan iyo qurbo joogta aad baan ugu faraxsanahay in dadku maaragtay xaafad walba la gaarsiiyo resource-ka xaafadan waa xaafad koraysa waa xaafad aan iskuul iyo santar iyo waxba lahayn runtii aadna ugu baahan runtii waa la yaabana waxaan la magaalada ma la geeyo laakiin waxaan dareemayaa inay meel walba oo kamid ah magaalada ay u baahan tahay in la gaarsiiyo resource-ka iyo tuulo walba iyo magaalo walba marka tuulada xaafada tani waa xaafad koraysa waa xaafad cusub waa
xaafad u baahan santarada iyo iskuulada iyo maaragtay dad yar oo badan ay degan yihiin dad soo barakacay iyo dad maaragtay ka yimid iyaguna qurbaha ay dhiseen oo hadda dhismayaal aad u qurux badan ka socdaan oo degaan fiican bay noqonaysaa marka waa meel u baahan kuna haboon waxaan u rajeynayaa qof walba oo inaga naga mid ah inuu maaragtay dadaalkaas ay ku jirtaa kaala Nederland ay iyaguna ay galaan lana garab galo annagana wixii karaankeena waan garab taaganahay wabillahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi wa bacdeen waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka iyo injineerka iyo Cabdisalaam iyo dhalinyarada kala dhamaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta Ramadaan tahay inaan kasoo qayb galno xadiga library-ga iyo meel dhalintu ay uga hadli doonto masiirkooda ayna uga qayb kuna qaadan doonto waqtiyadooda muhiimka qaar ka mid ah insha Allah waxaan ilaahay ka baryayaa dhismaha meeshan ilaahay oo dadka dhisaya u fudayo annagana waa caafimaad nagu gaarsiiyo runtii dadkan uu ku jiro asugu ilaanahay inaanu bal aragno meel dadku ay ku doodaan dhalintu ay ku dheelaan wixii dheelaa meesha yaala haday ganacsi tahay ay arkaan halkan ay cimaariyadeeda iyo dhisitaankeeduna ay 100 milyan ay ka qayb qaadanayso marka aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inuu inoo dhameeyo waayo inaga yeelan doono dadka dhisaya way ku magacaabnaan doonaan laakiin waxa yeelanaya waa dadka dhalinyarada weyn marka hadaan intaanan la dhisinaan gaboobin waxay la tahay dhalinyarada si ahaan doona marka inshallah waxaan rajeynayaa in la isdejin doono hawshuna ay dhamaan doonto dhalinyaraduna runtii aad bay ugu faraxsan tahay inta joogtay inta maqanba markii hadhow la dhisanaade maqaamka statuska ay yeelan doontaa waa boos dhalinyaro weyn hadii timaado si martii noogu noqoto soo dhaweynana insha Allah